السلام عليكم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أصحابتي قلقة سودا ولاashina garan laka oo uga barateen fikradeeda iyo dhiirigelin. Asxaabi maxaad iigu taqaaneen maxaad iiga barateen maxaad iiga sugayseen sida iigu taqaaneen mawduucyo kala duwan iyo barnaamijyo kala duwan ayaa markasta inaan wadaaga mawduuca waa ka duwan yahay mawduuci oo hore uu ka duwan yahay waxaana sababayo inuu ka dugnaado sanad cusub ayaa noo dhalanayo sanadka cusub noo dhalanayo ayaan jeclaystay inaan laba kalmadood ka dhiibto taasoo sanadka inay yani u tahay qofka ibni aadanka hadduu muslim yahay hadduu gaal yahaba u tahay nicmad ilaahay u soo hooyay maxaa yeelay sanadka hore dad nala jooga ayaa sanadkan nala joogin oo adduunyada ka tegay marka sanadka hore waa joogto sanadkan waa joogto waa nicmad ilaahay ku siiyay waa chance ilaahay ku siiyay chance muxuu ku siiyay ilaahay wuxuu ilaahay chance ku siiyay inaad nicmadu ku siiyay ku xamdisid ma ahan inaad dabaal degtid ma ahan inaad xafladii show intii lacag lagu bixiyo la badboodo ma ahan waxa ilaahay raali keen la sameeyo ma ahan waa ina cimriga ilaahay ku siiyay sanadka hore aad أو سنة عصب كوا بريستي سنة كان سنة عصب كوا بريستي وحاولتها فرصة كانت فرصة عصب إنه إلهي كسي وجو ما هن إنا هدي إلهي أونسي عافمات أما ونوكادي أما وكانت نسي ما هن إنا أدونك كوارينو أدونك متشوجينو سنة كان واتشوجنا سنة كده إنا تشوجينا موجود سنة كوردت كنا نتشوج سنة كان أنا متشوجان مركب قف كله وإنه وكو عبر قاطع قف مسلم walaalkiisa ama dad ehelkiisa oo sanadka hore la jooga ayaa ka tagay sanadkan inuu kaligiis yahay oo qofku inuu ka cimri qaataa waa inuu niyadiis u sheegaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku soo gaarsiiyay sanadkan oo sanad cusub 2022 ku dhaliyay ayaa mahad iska leh waa inaan caawa kala sanadkan dadka islaamka waxa laga rabaa inay duceystaan ma ahan boodbood iyo badaq waxa ilaahay raali ka in la sameeyo ma ahan sanadkan waxa waajib nagu إن إله سبحانه وتعالى سنة كانوا دليل أن أقوم هذا علينا حدنا كم هذا نقطة حدنا الحمد لله دهنا إلهي أذا نسوق جالسين سنة كان فرصة سنة كان نقول رشتو أذا نسيسي عمري أن سنة كان نقول رشتو هذا حلك همن عاو كوي هاي هذا لكم ستي سنة حتى ونعمد إله كوسي أبسيت يوجن ونعمد إله كوسي أنا سنة كان لكم ست محير ضد لكم سنة ما أهان مركز إلهي وحول وكسر تقري ما أهان إنا أدونك أساد دونتي آيلتد قفك بالآدم كان أساد دونت إنه يشماها إلهي سبحانه وتعالى إنه كعب صدواي وحول به لقب قابنا أما وحول ولا سمينا وحاول في عن إلهي درتي سين الله سميه عليك عبسي سين الله سميه وحلقة يا ماما حلفد وسنتك عصب الله دقايو أنت صول عق إنك بحد لقى يا أنت صول عق قف ولا كعب مثلا أو باهن حداسي سد وحاجة يكون بركوبايان noloshaada iyo caafimaadkaaga iyo wax waliba haysatid way ku barakoobayaan laakiin markaad caawinta meel show ku tagtid aad ku soo dhamaysid lacag ama waqtigaad ku soo dhamaysid khasaare ma wax faa'iido ka maraacin marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajeynaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala adoonku wuxuu ka rajeeyo ma waayo ilaahay waxaan ka rajeynayaa oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala rajadeedu taa oo ka rajeynaya ku sugaya inuu sanadkan khayrkiisna waafajiyo haddii la kuroon sanad barwaaqaysan sanad ummadda Soomaaliyeed ay wax badan iskaga bedelaan ay wax badan ay ka tanaasulaan ay noqdaan dad isjecel dad wanaagsan dad qalbiyadooda isku wanaagsan inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala naga dhiga ka rajeynaya aniga nin walba dhulkiisa ayuu ku faanaa nin walbana dhulkiisa ayuu ku farxaa nin walbana nabadiisa iyo dadkiisa isjecel ayuu jecel yahay anigu waxaan jecelahay dalkayga Soomaaliya meel kasta Soomaali joogto way weynta Soomaaliya waxaan jecelahay dadkeeda saqiirkeeda kabiirkeeda dad isjecel isku xiran inay noqdaan jecelahay إلهي وحن كبريا رحمانك رحيمك وقالق رحمانك الدون كان قرح البضن إنك كانوا وأبوري ونسي ننعي إلهي وحن كبريا إنه نوسي هذه نعمة إلهي وحن كبريا إنه نقدر ضد مصلحة أحد كدلت دور شد صعوت أما دور شد أسوق إننا كل ما تقول سيد إلهي رالي النوجي هنا وحول كل ما أنا وكان الرواء أدو هبل عربتا أصدق هبل الرواء ما أنا ما أهان إنها ده
kana rabaa adiga tiraahdaa kaasaa rabaa asaga yiraa kaasaa rabaa koo walba suura u hadlama waa inaan dadka iyo dalka maslaxadiisa aan ka talinaa haddaan anigu mid doorto adigu mid doorto asagu mid doorto ayadu mid doorato wax hagaagaya ma lahan wadankana ficil iyo isku tuutuur waxba kuma hagaagayo inay sidii khayrka nagu jira ilaahayna waafajiyo annaguna aan noqonaa dad tawfiiqdu iswaafajisa aan noqonaa haddii tawfiiq jirin waxba ma hagaagayo ilaahay subxaana watacaala ha naga dhigo dad tawfiiqdu iswaafajisa allaha naga dhigo dalkeena mid hagaagay dadkiisa mid hagaajiyo allaha naga dhigo dalkeena sharaftiisa cisidiisa dad soo celiya allaha naga dhigo ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryayaa casiisu raxmaanka ah kariimka ah waxaan ka baryahayaa inuu wadankeena nooga dhigo nabad naga qabto cadowga iyo sharta iyo shaydaanka dadka jecel ee dalkeena xumaatadiisa iyo dadkeena isqa qabsigiisa iyo dagaalkiisa iyo colaadeena dadka jecelna allaha raxmaanka ayaa u jeedo cidina kama qarsoono waxba kama qarsoono ilaahay subxaana watacaala wax walba uu arkayaa ilaahay raxmadiisa aan ku weydiisana sanadka cusub dhalanayo inay nolol cusub noo bilaabato ilaahay raxmadiisa ee dalkeena dadkeena isku bedelaan ilaahay ka rajeynaya ilaahay subxaana watacaala sanadkan sanad farxad sanad barwaaqo leh allaha nooga dhigo dadkeenana dad hanuunsan dad wanaagsan allah ka dhigo marka ilaahay subxaana watacaala dalkeena ha u dooro si dadkeena ay dad isku raacsan oo ku faraxsan yihiin ilaahay subxaana watacaala ha noo dooro raxmaanka ilaahay subxaana watacaala lagama quusto naxariistiisa ilaahay waa raxmad badan yahay waa naxariis badan yahay midda kale waxaan jeclaa lahaa oo haddana jeclaa lahaa inay ogaadaan culimada laygana gaarsiiyo culimadeena Soomaaliyeed way duceeyaan maasha Allah dalka way u duceeyaan laakiin waxaan jeclaa lahaa inay xoogga saaraan ay dalka u duceeyaan markasta ay u duceeyaan meel kasta ay ka duceeyaan culimada qaar waxaa jiro leh beejash leh markuu sheekhu duco soo dhigo dadka daawada ama ku xiran ay aamiin dhahaan maxaa ka qurux badan waxaa la qofka duceynaya qofka aamiin dhaho ayaa ka sii fiican yani laga aqbali ogaya maxaa yeelay waa dad badan ayaa aamiin dhahay oo ma cadad ma xisaabanay marka ilaahay subxaana watacaala naguma qasaarinayo culimada ducadooda naguma qasaarinayo dadka shacabka haday dhahaan aamiin marka ilaahay subxaana watacaala waxaan jecelahay inuu Soomaaliya nabad ka dhigo anigu waan jecelahay Soomaaliya nabadeeda waan ku faanaa Soomaaliya walaahi Soomaaliya waa dhul qurux badan waa dhul qiimo leh laakiin anaga ayaa qiimihii iyo quruxdii ka tirnay haddana anaga ayaa iska jecel qurba iyo dhul aanan ahayn inaan quruxsan anaga iska jecel meeshaan dhulkeena maal gashanayno dhulkeena guryo ka dhisanayn dhul shisheey ayaan ka dhisanaa mana ahan mid qurxoon midaas ilaahay subxaana watacaala hana jeclaysiiyo wadankeena hana tusiyo wadankeena dadka wadanka ka jeeda allaha jeclaysiiyo wadanka ummadda Soomaaliyeed dad isjecel isku faano iskala istaago isku dhiiga ilaaha naga dhigo waana isku dhiigee dad isku damqado iskarib istaagan midba midka kale dhibkiisa ka naxo allah subxaana watacaala ha naga dhigo waa sanad qurux badan sanadka naga tagayana naga tagana waa sanad qurux badan qof waliba soo maray mashaakil dhibaato marxalad adag jiro stress dhib adduun nooc walba uu yahay qof walba soo marana kii dhintana allah u naxariisto kii sanadkan la kowsadane allah subxaana watacaala marxalad kasta uu soo marana midka iska ilaw allah ka dhigo sanadkaana intay sii jirayaan dad ka faa'iideysta allaha naga dhigo oo markaste jecel wanaaga iskuna faro iskuna dardaarmo haddii la kuno markaste wanaaga iyo sabarka iyo khayrka iskula dardaarmo allaha naga dhigo dad khayrka isku jecel allaha naga dhigo dad xumaatada isku nuc allaha naga dhigo aniga maanta markaan waxaan soo dhigo oo ay aragtiin haddaad iga qabatiin qof kale sidoo kale aragtiin way suulaysaa xumaantana faraha lagu suuli karaa indhaha lagu suuli karaa afka lagu suuli karaa qalbiga lagu suuli karaa haddaa maanta aniga xumaanta ay igu taageertid way badanaysaa xumaanta qof kale ku taageeraysin laakiin haddaa maanta aniga wanaag igu taageertid beri waa la weynayaa qof igu jecel xumaanta qof waliba wanaaga igu jeclaanaysaa dadkoo dhan sidaas ku kale qof walba wanaag sameey wanaaga lagu jeclaanay dad xumaan sameeyana xumaanta waa lagu nacayaa marka ilaahay subxaana watacaala dad markaste wanaagsan ilaahay dartiis isku jecel allaha naga dhigo muslimiinta meel kasta dunida joogto inta muslim sheegato islaamka sheegato nabi maxamed sheegato iyo ilaahay subxaana watacaala aaminsan iyo nabi maxamed ilaahay waxaan uga rajeynayaa meel kasta dunida ka jooga inuu ilaahay ku ammaansano muslimiinta meel kasta dhib ku haystaan ilaahay subxaana watacaala dhibkaa ka dulqaado qaar waxaa jiro aan la ogaan xabsi ku jiro xabsiguna
وعقاب الدنيا عقاب الدنيا تيو حماد واي حبسك إلهي سبحانه وتعالى حبسك كبحي ضد مسلمين وحاشرت الظلم لغوها استو لما أقول لكن مسلمين وحاشرت قبرية كورن قبرية كلها كورن حبس جدا إلهي سبحانه وتعالى ها وقرقارو إلهي سبحانه وتعالى ها وقرقارو قالوا همينك السنة كعصب وكويه ويودب بالدقان أنا قنا هدان إلهي برنو إلهي وحان ربنا كما وين إن السنة كعصب غير كيسة إلهي سبحانه وتعالى هنا وافجيو مسلمين تدبات هي ستنا الله كدل قاض ضدك الظلم يقلقوا هاينا الله كدل قاض الظلم يقلقوا هاي كي الظلم هودنا إلهي هدو هنون يقير لا تجعلي هاي ها هنون شو قيرنا على الظلم كي هنون وإلهي لدوننا والدنيا ذا وحبا الدنيا ذا يعني الدنيا ذا وقف النينا الله بربكيسة سنة نقصها نسوي حكيو إلهي سبحانه وتعالى قف كسته مراد إلى مراد كذا أسهله إلهي سبحانه وتعالى قف كسر يده أسهله إلهي سنة كان عصب لنا ضدك إلهي كواريو هذا نقول إلهي كوا عمل وناكسن عبادة لي ما الله نقدره مروا البنا كوا إلهي سبحانه وتعالى عبده كعب صدق كحشود الله نقدره إيجانا فعل النقطة مفانسكي يقول حنا مركب وين كل يري runtii aniga waan jecelahay markas toosana cusub dhashto inaan dadka u sheego wax fiican la jeclaado farxad la jeclaado guul waan jecelahay markasta Soomaaliya inaan u duceeyo waan jecelahay sababtoo ah wadankayga macaanidu leeyahay quruxdiisa wanaagiisa qiimihiisa ayaan dareemi karaa qof hada aragti wadankiisa jecel waa qof qiimaha dareemayo qof waliba asoo u dhashay hadana jacaylka wadanimadu ay leedahay ayay ku kala sareeyaan marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dad gacmaha isqabto isjecel Allah naga dhigo dad faqiirkii taajirka iscaawi iskar istaag Allah naga dhigo ma sha Allah inkastoo hadda abaartii dhacda dhalinyaro badan oo garab istaagta aan arkay waxay ii tahay farxad waxaan dareemayaa farxad wadankii isbedel weyn ku dhacay maalin walba nolol cusub farxad cusub ayuu la kulmayaa marka dadka dhahayaan rajo kama soo socotona naxariista Ilaahay aan laga qoosanin Ilaahay ma dhihin naxariis kama soo socoto Ilaahay ma dhihin nabad ma noqonayso anagu baan iska dhaxayna dadka dhintana sabab looga dhigay tooda dhamaatay dadka noolna waqtiga u dhiman marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa xayyi noolay xayyi dilay xaraarug noolay aan Soomaalidu marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hawshii arrinka asaga ayaa watee Allah tawfiiqda hana waafajiyo igana raali noqdo caawirku in ku dheereey wabillahi tawfiiq